shacabka magaalada Burco ayaa si weyn u taageeray digreetadii dhawaan madaxweynaha qaranka Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ka soo saaray dadka reer Soomaaliland ee taga Soomaaliya. Tallaabadaasi oo ahayd ku dhac iyo go'aan geesinimo leh oo uu qaaday madaxweynaha qaranka Soomaaliland. Waxay sidoo kale madaxweynaha qaranka Soomaaliland ku taageereen inay wixii wada hadal u daba fadhiisan doonaan xukuumadda iyo madaxweynaha. وفرصة لقى قاضو ورجع حتى هنتيجه ده للوري. تدام الحولا وقوام في الليل الأصلي. حمر وين قررنا واحد نريح يا لدي. ما يلاوي إنه ما نشوف نور توقتي حمر لك ربع علي في العيد اللي راعان. ما الناس وتجنيد. لكن ما يلاوي إنه وحي أبياش يا شيء كذا قاعد أبصر هنا كذا قاعد مني أي ده كل إنسان. لكن ما يبين الميلون. حوي أنا وحبر دوري بينه. لبعض كده وكسر بينه. ما نوكسر بينه. وحوي وضد Soomaaliya waxa weeye waxay geysan jireen baan anigu garanaya anu ciyaaladii sanadkii haroreysa ka yimid xabar baan doonaya haba kama yaqaano marka waxa weeye musabbixi taa uu ku baatay soo saaray in ay go'aankiisa wali ay tahay inuu muujiyo muwaadiniin ballaaran in ay tahay wareegtaas inta kaliya laga dhignay oo ay ku dhici waayeen madaxweynayaashii ka horreeyay afartii madaxweyne عشان يصدق شباب ولا جاي على الصومالي ولا شو ولا جاي مارك والله أنا بقول بالله أنا طلاري أنا قاعد بنش أنت أصلا ما تقصر لك هذا ولي أضام كنا قوري مرتين بعد لا يعيسى هالحين خليه يعمل قصة شو قال تدور قف الدنيا ما شو قف الطريق وطلع ضربة حماي ما كان الصومال لا أنت ما بقول يا الصومالي وحلا ياي ليش هالكل يا عيسى خيط بنا قام خان تضم بنا قام خان تذكر يا مدحنا يدي سي عاصمة كوزر حمر يا Soomaaliya waxba anaga laga ma horayaan la anaga xamar waxba laga ma horayaan dadka maanta shaqo tagayna waxay ku ciyaareen ummadan iyo dalka jirtoonkooda sharaftooda ku ciyaareen way mudan yihiin talaabo sharci waafaqsan laga qaado wariga waxa madaxweynaha ku darayaa inuu sharci ka soo saaro nimanka siyaasiyiinta ah ee inta cashuurteedii qaateen ee wasiirada noo noqdeen iyo gudoomiyaasha noo noqdeen oo cashuurteedii waxba lagu qaban anaga qaateen marka xilka laga ragay ka digay xamar ee maanta ka soo dhistay guryaha Hargeysa ee haddana markii soo shaqaystay inaan soo cafi madaxweyne inaan sharci baarlamaanka soo saaro iyadoo uu sheegay baarlamaankaas inuu hantida ka soo dhistaan xamar aan anagu leenahay waxaan arkay dhalinyaro badan oo Soomaaliland oo le go'aanka madaxweynaha wada soo jeednaa waxaan leeyahay dhalinyaro inagu xisbiga ku mucaaradi karnaa xisbiga udub ku mucaaradi karnaa xisbiga waddan ku mucaaradi karnaa laakiin waxa ogaatay inayna marnaba ku mucaaradi karin oo ayna ka hor dhiman karin qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliya doona wax banaahay way maanta xamar iyo hoostiga yiminay way iyadii baa maanta oo soo qarxayso meel ku socota marka in anagoo maanta amni iyo dad iyo dowladnimo iyo madaxweynaha haysana inay yiraahdaan waanu Soomaaliland ma loo midowna wax aqliga bilaadanka kala maaha